wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda Soomaaliya injineer Cabdi Maxamed Sabriye oo ay weheliyaan khubaro ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta la taliyaal iyo xubno kale oo qayb ka ah xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan waxay kula qaateen magaalada caasimadda ee Muqdisho safiirada midowga Yurub u jooga Soomaaliya. kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku saabsan siyaasadda hanaanka dib u heshiisiinta qaran ee dhawaan ay meel mariyeen golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale sidii ay u dadajin lahaayeen midowga Yurub mashaariicda horumarineed ee ay ka fulinayaan dowlad goboleedyada dalka. injineer Cabdi Maxamed Sabriye oo warbaahinta la hadlay kadib markii kulanka uu soo idlaaday ayaa tilmaamay in midowga Yurub ay ku bogaadiyeen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta hanaanka ay u diyaarisay siyaasadda dib u heshiisiinta qaran ee Soomaaliya ee dhawaan ay meel mariyeen golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. dhanka kale wasiir Sabriye ayaa xusay in safiirada midowga Yurub ee Soomaaliya ee kulanka uu la qaatay ay ballan qaadeen in Soomaaliya ay ka taageerayaan iyo dadajinta mashaariicda ay ka fulinayaan dowlad goboleedyada dalka. annagoo aniga iyo dad khubaro ah oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo qof ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan halkan kula kulanay safiirada midowga Yurub oo aan u balansanayn in siyaasadii dib u heshiinta qaran oo soo dhamaatay golaha wasiiraduna ansixiyeen aadna loogu bogaadiyay tiimkii ka shaqeynayay hawshaas iyo wasaaradda iyo xukuumadda ee wadankaba dhamaantiis inay nala arkaan siyaasaddaas soo gabagabowday hirgelinteeda inaan isla aragno iyaguna ay ballan qaadeen inay sidii ay qayb weyn uga qaateen samayntii siyaasadda inay qayb lixaad la ka qaataan hirgelinteeda. marka arrimahaasaan ka hadalnay safiirada waanan isla afgaranay runtii biri ayaa loo ballamay in loo daadego arrimaheeda farsamo iyo dejinta qorshaha lagu hirgelin lahaa. waxaan rajaynaynaa sidii horeba aan u wada shaqayn jirnay wadamada midowga Yurub oo dhan mid iyo EU ahaan waxaan rajaynaynaa inaan wada shaqayno oo gaar ahaan arrinkan aad iyo aad masiiriga ugu ah horu socodka qaranka Soomaaliyeed inay gacan ka geysan doonaan sidaasaan isla sheegnaa. mahadsantahay. muhiimad intee leeg ayay dadka iyo dalka Soomaaliyeed sharcigaasi hore oo ansixiyeen golaha wasiirada uu leeyahay? sharci ma ahayn siyaasadu ahaa. waxaan is leeyahay wadankan hadda 30 sano dhow ayaanay dhibaatadii soo bilaabatay 1990 ayaan weli laga farxalan oo ay taagan tahay oo ay carqalad tahay oo ay u baahan tahay in dib inta loogu noqdo dadka Soomaaliyeed ay ka wada xaajoodaan dhibaatadii dhacday iyo waxa ka haray oo hadda jooga. marka siyaasaddaani waa siyaasad loogu talagalay inay hagto sidii dadka Soomaaliyeed dhinacyada kala duwan oo u baahan inay ka heshiiyaan dhibaatooyinka dhacay oo dhan ay u dabooli lahayd. marka siyaasaddii waa haynaa, dokumentigii waa haysanaa, hadda waxaan ka hadlaynaa waa in wasaaraddu haddana hogaamiso qaabkii siyaasadda la soo qoray oo dokumentiga noogu tala loo hirgelin lahaa. wadayaal subscribe saara channelkan haddii aad ku cusub tahay share garay like-tana ha ka iloobin sidoo kale haddii aad aragti qabto hoos inoogu reeb oo mahadsantiin.